وعلى مسارتي وعصاه وعلى مسارها أنا وعلسوا يا العقال أوجه شيء هدين تناغو هرديغو دولة دي منو كهنا يهدق دلاغو هو ندانا دانتي يا ربي غيهك هرديغو ومناسبة لو على مساري نبضون كلا بيتبناد بيش عد كعقال ألمجن نبضون سعيد أبو بكر محمد حيل دفلي مناسبة لو على مساري نبضون كي وحا كسو قيب قلي وحقرد نبضونو عقال دلينيرو هاوين سياسيين سوكو جرا حلبانو مسؤولين كسعودة قلها وزيرده iyo bulshooyinka guud ee cadcadka cigaal alla magan ee ku dhaqan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho نبضون حاجي عبد ولي نبضون حاجي عبد ولي صدق نبضون صعبك عاوز صعبك محل عاي ونبضونكii 12aad ee yeelatay beesha cadcadka cigaal alla magan taasoo ay ku muujinayso isku xirnaanta beesha iyadoo maanta lagu caleemo saaray nabadoonkan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho xildhibaan Yuusuf Xele oo xildhibaanka matala beesha ayaa ugu horan ka hadlay munaasabadan mansabka ay leedahay sidoo kale wuxuu soo dhaweeyay mas'uuliyiinta kala duwan ee ku sugan halka ay ka dhaceysay xafladda caleemo saarka nabadoonka 12aad ee beesha cadcadka cigaal alla magan Saciid Abuukar Maxamed Xayla Dufle kasoo galo beesha wacays leh waa Axmed Cali Gadaf amba Culso Muuse intaas kadib waxaan leenahay wanaagii iyo dhaqankii fiicnaa iyo jiritaankii iyo walaalnimadii waa ku mahadsantihiin cigaal abtirsiintiisa waa cigaal alla magan guuleed Axmed Diini Xaaji la yiraahdaa qoys culamaa oo ka soo jeeda waa qoys aludiin oo culamaa qofaan diin lahayn ma ahan dadka cadcadada aragtiin waa dad oo ahludiin ah waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo nabadoonnadii maanta ka soo qayb galeen oo ugu horeeyay nabadoon Suusac nabadoon Guruma iyo nabadoonkii kale iyo adeer ilaa u mahad celiyo adeerkay Shawiir oo ah dhagax isku nah oo dhulka sida loo difaaco kala yaqaan meesha waxaan noogu qoran budbud iyo halleer iyo cusweyne waxaan u qornaa dad badan nooga dhintay dhiig badan nooga maqan wax ka difaacnay marka waxaan u qornaa sidaas waaye waxaan kaloo mahad celinaa adeerkay Cabdiwali oo fadhiya meesha Sheekh Cabdiwali waxaan leenahay adeer Sheekh Cabdiwali soo dhawaaw cigaal alla magan waa kuwana waxaan kaloo mahad celinaa nabadoonkayga walow ma dhigi karo laakiin soo awdagayne wal soo dhawaaw nagaafo odayaasha kale oo meesha joogo dhinaca kale qaar ka mid ah uqaasha nabadoonnada iyo waxgaradka ugu weyn yahan boqor Cabdullaahi Geedi Shador ayaa soo dhaweeyay nabadoonka iyaga oo kalmiteenkooda qaatayna waxay bogaadin u muujiyeen nabadoonka 12aad taariikhda fog ee cadcadka cigaal alla magan ayay sidoo kale ka sheekayeen waxgaradkan iyo uqaashani إني قال له اسكت وراي وشاقة بوقته عدك كلواك حماده نكاس محاجر أن من نيجي اسكت ورتي وحنا ما نبجران نيجي يا اسكت ربا وحكلو كان ببجران بوقته بقى أساس يكون ما تتحصل وحنا يشاقة يا بوقة والله الضوبة ولا الكي وحنبليو sida loo dardaarantayna loo dardaar maayo arugu wax kala sheegi maayo yadku fiicay horta sida loo dardaaranteen wax kala ku dari maaye walaalkayo hadiiska nabigu wuxuu ahaa la yiri nabiga animo yimidaalay markaas uu yiri nabi allah waxaan rabaa inaad wax ii sheegto adduunyada waxa ugu fiican ii sheeg waxa sameeya ii sheeg وقاسوا وحكى لكم شيء ما يحشو حشو صدح قارو كوصون قضاء اللي راسوا حشو صدح دي قاربة شرف يو كرامة له ما شاء الله قبل إذا هذا وما سنتهي على كيس مالية ده ما شاء الله وحن هذا سولويننا
نبضون سعيد أبو بكر محمد نبضون نبضون وحال غربا مر هدي لو دوبو بكي كاوري ماشي مرينا مرتو وحال غربا intaas waa kaftan meel igama jiro haddana waa walaalahay waayo ree alla magan marka meel aan aad u jecelahay meel dheer igama tegin marka haddii alla kuu roon yahay taas waa kaftankii waxaan rabaa marka inaan soo dhoweeyo kelmadaha maaragtay iga habboon nabadoonka aan ku soo dhoweeyo xafladda nabadoonnimada caleemasaarka waa ku soo dhoweynaynaa waa kula shaqaynaynaa haddii alla kuu roon yahay nabadoonkaasi khayr allaha siiyo mid qabow allah ka dhigo dadka oo dhan mid deeqana allah ka dhigo dalkiisana mid deeqa allah ka dhigo idamka ilaahay taana waan ku ducaynaynaa dhammaan dadka oo dhan baan salaamay aad iyo aad nabadoonkuna haddee markuu yimaado waanu caleema saar halkiisa wax ka qaatay wuxuu u dhiibay culis oo wase waxaan rabaa amuga anugu wax kala dhihi ma rabin laakiin in la ogaado berigana maahan waxaa ka caddaaday warku iskuma darra beriga waa caddaaday wuxuu yidhi nin hadda ka hor dad niman dawlad oo dawladii horaa meel ceel gorof la yidhaah niman dad ku arkeen dawladda ka mid ahase nin iyo geed nimay iyo saareen meel haana la yidhi nin oo warranaya dadkaan wax u sheeg muggaasoo wuxuu yidhi dhuqdhuq lahaa hero dhuqdhuq lahaa hero dhuqdhuq lahaa hero oo yidhi maha laga soo bilaabay iyo maha lagu dhameeyey magaca boqorka oo boqorkii wacaysla ah iyo intii ka dhaxaysa waxaa mahad iska leh allihii macbuudahay oo hoolkan isugu keenay sharafta badan laguna juhdi badanna la geliyey ayadoo lagu dooranayo nabadoon muxuu ahaa ay dooranayso beeshiisu ay dooranayso intaana ay muxuu ahaa ayidsan tahay kaasaan waan horta mahad ugu celinaynaa intaa ka bacdi waxaan leenahay war hadal badan haanma buuxshaa la yidhiye alla magan waa dad qiimo leh qiimana ku leh muxuu ahaa dadka ow la degan yahay oo duntiisuna ay tahay dun nadiifa maxaa yeelay qofku haddaysan ahlu sharaf ahayn ummaddaanu uma soo xaadirteen waxaa ka caddaynaya inuu ahlu sharaf yaho duntiisu ay qiimo leedahay alla magan intaa ka bacdi waxaan leeyahay alla magan waxuu ugu dambeyn nabadoon Saciid Abuukar Maxamed Xeyle Dufle oo ah nabadoonka 12aad ee beesha cadcadka cigaal magan ayaa soo xiray munaasabada isagoo u mahadnaqay guud ahaanba bulshadeynta beeshan ay ka soo qayb galay munaasabada caleemasaarka wuxuu sidoo kale u mahadnaqay nabadoonnada siyaasiyiinta waxgaradka iyo uqaasha xaadirka ah munaasabadan lagu caleemasaarayay nabadoonka 12aad ee beesha cadcadka cigaal alamagan noo soo shaqeeyay soo jiritaankii cadcadka reer cigaal ka soo bilaabatay 12 oday oo uu ka mid yahay abkoogay Abuukar Faroolo Dufle oo si wanaagsan loo yaqaano waxaa ka mid ahaa Cali Xasan Dufle dhammaan waa akooyaashay ka soo shaqeeyay dhaqanka cadcadka reer cigaal ilaa budbud aldheer galcad mise gawaay dhammaanteen waxaan u taaganahay waa shaqadii beesha cigaal alla magan waxaan mahadcelin u samaynayaa dhammaan 12 oday shaqada ay soo qabteen iyo xiriirkii ay ka sameeyeen galcad iyo budbud iyo masagawaay inaan sii wadi doono dib u heshiisiintii macallin bilaawna aan sii bilaawi doono waxaan kaloo ka sii shaqaynayaa dhammaan dulduleelada ka jiro shanta beeleed ee alla magan aan curudka u ahay inaan shaqadaasi dib u bilaabo dib u heshiisiin kuraas dhammaan baan dhigo waxaan mahad celinayaa dhammaan Ismaaciil Ibrahim Xasan Somali Cable Muqdisho usoo wareegoo la jaanqaad dunida casriga
oo ku maamulo abka dahabalaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo deg App Store iyo Play Store abka dahabalaas